waxaan ka hadlayaa labadii qof markay isu yimaadaan ay isguursadaan caynkii ay u wada dhaqmi lahaayeen ayagoo ilaahay ka cabsanaya. waxaad moodaa maanta dhalinyaro fara badani inay guurka moodeen inuu yahay barnaamij telefisyon laga daawanayo oo kale, oo xaggooda waxa weeye maanta berita shalaan isbaranay, maantana waynu isguursanaynaa, beritana waynu kala tegaynaa. taasoo ay ku qiyaaseen qiyaastan gaalada u yaqaanaan datingku waa inan iyo inan saaxiiba, way isterigareynayaan inay isku wanaagsananayaan iyo inay isjeclaan karaan iyo inay wada socon karaan, way iska wada noolaanayaan, way wada seexanayaan, way wada lugeynayaan, way soo wada cashaynayaan, guriba wada degayaan. wiig 2-3 bil ka bacdina albabada kala qabsan waxa leeyahay nabadgelyo, uma arko inaad igu qanacsantahay, anna uma arko inaan kugu qanacsanay, waa inooy nabadgelyo. dhalinyaro fara badan oo tashabbac ku sameeyey telefisyonaday daawanayeen iyo aflaamtay daawanayeen iyo riwaayadahay daawanayeen iyo waxay akhrisanayeen, oo dhaqankii gaalada aad moodid inuu u noqday asaas u noqday oo wax walba ku saleeyo dhaqankii gaalada ayaa intay isguursadaan beritana kala boodaya. waxaa cajiiba markii hore markuu qofku oranay inantani waxay isqabeen sanad oo way kala tageen, waanu ka nixi jiray oo waanu odhan jiray war maxaa dhacay, inantii maxaa ku dhacay, inankii maxaa ku dhacay. imika laakiin waxaad arkaysaa qaar bil wada joogay, qaar wiig wada joogay iyo qaar maalin wada joogay. waxay ku kala tegayaanna waa wax bilaa macnaa, yani waxaan inaka aynu odhan karo waa sabab wanaagsan iyo qiil wanaagsan ma aha. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahay at-talaaqu marratayn, in la isfuro waa 2 goor oo waa xalaal. cidina ma diidayso, saxaabadina way isfuri jireen radia allahu canhum ajmaciin, laakiin de wax bilaa macnaa iskumay furi jirin intooda badani, oo inaku waxaynu aragnay bilaa macnata iskumay furi jirin. inan bay ka soo booday, inanka ha laga fura bay tiri, oo imisa isqabteen bil ama wax ka yar. inanka maxaad ku nacday aad kaga soo booday? inanku been buu ii sheegay bay tiri. waanu wada yaabnay, waxaan war inankan inanta beenta u sheegay dee been weyn bay ku qabatay, inankiya bal inanta aynu dhegaysano. hadday beenteedaasi wax macquula, beenta inanka uu sheegay hadday wax macquula ay tahay, dee inanka anaha ka furdaaminanaba inanta ka saaren oo ka kaxaynan oo ka eryana. bal noo waran baanu ku inantii marka ingiriis baynu kula hadlaysaa, waa aad iyo aad casabiyad iyo xamaas iyo energy iyo way passions bay kuwaas wax ka leedahay. he lied to me, been buu ii sheegay. beenti waa maxay? waxay tihi ninkani inuu habeenkii markuu seexdo khooriyo iimuu sheegin intaanu isguursanin. imika markaan aqal wada degnay aanu guri wada galnay, uu habeenkii seexday, habeenkii ugu horeeyey ayaa naxay. oo maxaad ka naxday? khooradiisii. marka he lied to me, been buu ii sheegay, ninkan iga fura. waxaan u aragnay marka bal dhalinyaradan isguursanaysa haddana markiiba soo kala boodaysa, bal inaan horta u macnayno guurka iyo jacaylka iyo maxabadda iyo wada joogani waxay yihiin.